Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada koorsiga barashada maadada xisaabta. Kuna soo dhawaada casharka maanta oo ah casharka afaraad. Casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa akhrinta tirooyinka u dhexeeya 10,000 ilaa 100,000. Casharka markaan dhammayno, arday walba waxaa laga doonayaa in uu akhrin karo si la mid ah uu qori karo tirooyinka u dhexeeya 10,000 ilaa 100,000. Aan guda galno casharka maanta. Horey waxaan usoo baranay kun waxaan dhahnay waxaa loo qoraa sidan. Waxay noo muuqataa kunka inuu wato 3 eber. Waa 1,000 oo keliya. Haddii aan doonayo marka inaan qoro 10,000, waxaan u qorayaa sidan. Waxaan leeyahay 10 ayaan qorayaa. 3 eber ee kunka ayaan raacinayaa. Waxay noqonaysaa 10,000. 20,000 haddii aan doonayo keliya halka ayaan waxaan ku bedelayaa 20. Waxay noqonaysaa 20,000. 30,000 haddii aan doonayo keliya waxaan bedelayaa halka waxaan ku bedelayaa 30. Waxay noqonaysaa 30,000. 40,000 haddii aan doonayo waxaan qorayaa 40. Kadib 3 eber ayaan raacinayaa waa 40,000. 50,000 haddii aan doonayo waxaan qorayaa 50. Kadib waxaan raacinayaa 3 eber. 60,000 sidoo kale waxaan qorayaa 60. Kadib waxaan raacinayaa 3 eber. 70,000 waxaan qorayaa 70 marka hore. Kadib waxaan raacinayaa 3 eber. 80,000 waxaan qorayaa 80 marka hore. Kadib waxaan raacinayaa 3 eber. 90,000 waxaan qorayaa 90. Kadib waxaan raacinayaa 3 eber. 100,000 haddii aan doonayo sidoo kale waxaan qorayaa marka hore 100. Kadib ayaan raacinayaa 3 eber. Waxay noqonaysaa 100,000. Marka halkan waxaan ku baranay sida loo qoro 10,000 ilaa 100,000. Laakiin markaan doonayno inaan qorno tirooyinka u dhexeeya 10,000 ilaa 20,000 sida 10,000 iyo 1, 10,000 iyo 2, 10,000 iyo 3, 10,000 iyo 4, 10,000 iyo 5, 10,000 iyo 6, 10,000 iyo 7, 10,000 iyo 8 ilaa laga gaaro 20,000. Waan qori karnaa, laakiin halkan kuma soo koobi karno. Kaliya waxaan idin faahfaahinayaa qaacidada sida loo qoro tirooyinka u dhexeeya labada tiro, sida 10,000 iyo 20,000, 20,000 iyo 30,000, 30,000 iyo 40,000, 40,000 iyo 50,000, 50,000 iyo 60,000, 60,000 iyo 70,000, 70 iyo 80, 80 iyo 90, 90 iyo 100. Marka qaacidada ayaan isla eegi doonaa. Aan eegno marka hore 10,000 waxaa loo qoraa sidan. Waxaan leenahay waa 10,000. Waa 10,000. Marka haddii aan doonayo inaan qoro 10,000 iyo 1, eberka u dambeeya ayaan waxaan ku bedelayaa 1. Waa 10,000 iyo 1 ilaa laga gaaro 10,000 iyo 9. Kaliya waxaan bedelaynaa eberka u dambeeya. Mar haddii aan soo gaarno 10,000 iyo 10, eberka labaad ayaan soo galnay. Eberka labaad ayaan waxaan ku bedelaynaa 1. Kan kalena wuxuu ahaanayaa 10. Marka haddii aan eegno waa 10,000 iyo 10 ayaan rabaa inaan qoro. Marka eberka labaad ayaan bedelay ilaa laga gaaro 10,000 iyo 99. Waxaa isbedelaya keliya labadan. Haddii aan dhahno waxaan doonaynaa inaan qorno 10,000 iyo 99. Marka hore kan ayaan bedelayaa, waxaan ku dhigayaa 9. Kana waxaan ku dhigayaa 9. Waa 10,099. 10,000 iyo 100 haddii aan doonayo inaan qoro, waxaan qorayaa 10,000. maadaama 100 aan soo gaarnay, eberka saddexaad ayaan soo galnay. Kan waan bedelaynaa, waxaan ku bedelaynaa 1. 100 kana wuxuu wataa 2 eber. 10,000 iyo 100 ilaa laga gaaro 10,999 oo sidan loo qoro 10,999. Marka waxaan leenahay 11,000, 11,000 ilaa laga gaaro 19,999. Sidan ayaan ku soconaynaa. Waxaan rabnaa inaan qorno 19,999. Haddii aan ka gudubno, waxaan u gudbaynaa 20,000. Si la mid ah, isla qaacidadii un baan isticmaalaynaa. Wax aan ka bedelayno haba yaraatee ma jiraan.
tusaale aan eegno marka haddii aan doonayo inaan qoro 20,000 iyo 1 eberkan u dambeeya ayaan bedelaya. Waxaan ku bedelayaa 1 ilaa laga gaaro 20,000 iyo 9. haddii aan soo galno 20,000 iyo 10 eberka labaad ayaan bedelaynaa. tusaale waxaan rabnaa inaan qorno 20,000 iyo 10 iyo 9. waxaan rabnaa 20,000 10 iyo 9 labadan ayaan bedelaynaa. 10 iyo 9 waa 20,000 10 iyo 9. haddii aan doonayo inaan qoro 20 iyo 9,000 tusaale waxaan rabaa inaan qoro 20 iyo 9,000 834. waxaan leeyahay marka 20 iyo 9,000 834. marka qaacidada waxaan rajeynayaa inaan isla fahanay. waxa isbedelaya oo sidaa ah nama jiraan. tusaale aan soo qaadno waxaan rabnaa inaan qorno 89,000. waxaan rabnaa inaan qorno 89,000. 89,000 ayaan raacinaynaa oo ah 3 eber waa 89,000. haddii aan wax raacin lahaa oo aan dhihi lahaa 89,454 waxaan qori lahaa 89,454. wixii aan akhriyay baan halkan ku qoray. waxaan rajeynayaa inaan isla fahanay qaacidada. arday walbana uu qori karo tirooyinka u dhaxeeya 10,000 ilaa 20,000, 20 ilaa 30, 30 ilaa 40, 40 ilaa 50, 50 ilaa 60, 60 ilaa 70, 70 ilaa 80, 80 ilaa 90, 90 ilaa 100 inuu qori karo. waxaan dirayaa leyli. arday walbana waxaan ka rabaa inuu ii soo akhriyo leyligan. waxaan leenahay leyli. su-aasha koowaad ayaa ah ardaygan looga baahan yahay in uu soo qoro soona akhriyo ayaa ah midan. marka midan waxaa looga baahan yahay arday walba inuu soo qoro si lamid ah uu soo akhriyo. lambarka xiga oo ah lambarka labaad midan ayaa arday walba looga baahan yahay in uu soo qoro si lamid ah soo akhriyo. lambarka saddexaad ardayga waxaa laga rabaa inuu soo qoro si lamid ah uu soo akhriyo tiradan aan halkan ku qori doono oo ah midan. lambarka afaraad ardayga waxaa laga rabaa inuu soo qoro si lamid ah uu soo akhriyo tirada aan halkan ku qori doono oo ah tiradan. lambarka shanaad oo ah lambarka ugu dambeeya arday walba waxaan ka rabaa inuu ii soo qoro si lamid ah uu ii akhriyo tiradan. qaacidada oo isku mid waa kuwii aan halkan ku soo baranay. waxaan rajeynayaa in aad fahantay casharka. waxaan ila socodsiinayay anigoo ah Cabdikariim Xasan. la soco casharkan casharka xiga.